السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونبض وضيال دمانتين با ميل كستوات جوجتان ومقع يجيو موقيقو بيدي كسو قاديو تاوضيال وحال سو قادي امينتان داون جرتين وركا يجاها بينمو وركنا وحاو ديارة اسلام مركاسين يديلا سعودسين دونا انيقو عيدروس محمد احمد halkaad warkaasi kala socotaana waa xarunta dhaxeer iyo TV ku leeyahay magaalada Hargeysa qodobada habeenkani caawa ugu door korona waxa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyagoona u socdaalay isla markaasina u sii jeeda magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea warbixin ayaan idinka haynaa maayarka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Ciidin ayaa sheegay in dhulka bannaan ee ku yaala magaaladaasi Berbera haddii shacabka ku dhaqan magaaladaasi Berbera ay ku dhisan waayaan muddo 2 sano ay dhulkaasi ay dib u noqon doonto amaba ay qaadan doonto dawladda hoose ee magaaladaasi Berbera maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxa uu soo saaray war saxaafadeed oo kaga hor imanayo hindisa sharciyeedka shidaalka Soomaaliya oo dhawaan ay ansixiyeen golayaasha dawladda federaalka ee Soomaaliya mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee gobolkaasi Togdheer oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaaladaasi Burco ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan soo noqoshada gudoomiyaha xisbigaasi ومدooyinkii u dambeeyay safar ugu maqnaa dalka dibadiisa oo maalnimadii shalay ahayd lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland qodobada wararka dibadda daawadayaal idinkaynana waxa kamid ah aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka ayaa u codeeyay qaraar lagu xadidayo awoodda military ee madaxweyne Trump uu leeyahay inuu dagaal ku qaado dalkaasi Iran daawadayaal kuwaasi waa qaar kamid ah qodobada habeenkani caawa ugu door koronley haddana u diyaar garoob ah kuwaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan